وحر الله أكبر أيان لنا أيان ugu faraxsanahay go'aanka cadaaladda ah ee maxkamadda oo aan ka filinay waxaan rabaa inaan ku daro maxkamadda militariga dad badan oo Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin inay tahay maxkamad aan cadaalad ahayn dad badan waxay aaminsan yihiin maxkamadda militarigu in qofka la geeyay aan dib loo soo celin laakiin waxaan maanta cadeynaynaa in arrintaas beenooday dhageysigii maxkamadda oo markii ugu horeysay dad shacab loo ogolaado anigu aan goobjoog u ahay isniintii aan ka qayb galay sidii aan ka arkay kamaan filaynin in maxkamaddu sidaas ay ugu shaqeyso waxay ficnaan leedahay hadii maxkamadaha kalena ay qaabkaas oo kale u shaqeynayaan abuuja maanta waa xur 5 bilood ayuu xirnaa waxaan ku faraxsanahay in maanta uu banaanka joogo oo xur u yahay shaqadiisii saxafinimo uu dib u wadanayo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qareenadii saaxiibadeen ahaa ee muddada dheer ee 5 bilood habeen imaan nala shaqeynay ee daba taagnaa ee si kala duwan noo taageeray si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa qareen daahir maxamed cali daahir carab shaqadii quruxda badneed ee uu nala qabtay isaga iyo kaaliyaashiisa iyo dhammaan qareenada kale ee halkan ka qayb galay ee ay ka mid ahaayeen professorada iyo isxaaq waxaan rabaa inaan u mahadceliyo kaalintii ayna siiyeen iyo taageeradii ayna siiyeen dhammaan ururadii nagala qayb galay in wariye maxamed cabdiwahaab qareeno uu helo lala shaqeeyo si gaar waxaan ugu mahadcelinayaa maxamed cabdiwahaab cabdullaahi oo garabkayga taagan xogayaha guud ee Soma oo asaguna arrintan si guud iyo si gaar ah baan uga wada shaqeynay in cadaalad uu helo ugu dambeyn wariye maxamed cabdiwahaab abuuja waxaan rabaa inaan ugu bishaaray bahda saxaafadda Soomaaliyeed waqtiga adaga soo marteen kuwa kalena waa idinku soo fool leeyihiin way dhamaatay xilligii wariyaha la handadi jiray way dhamaatay xilligii wariyaha lagu eedeyn jiray al-shabaab way dhamaatay xilligii wariyaha wararka adag ee criticalka qora loo handadi jiray oo lagu handadi jiray maxkamad iyo la geenayo xitaa haddii maxkamad la geeyo sidaas ay ugu daba tagi doonaa qareenaan haysanaa waxaana maxkamadaha sida maxkamadda militariga iyaduna aan ognahay oo hubnaa in cadaalad ay samayn doonto saxaafadda waxaa ugu baaqayaa isku duubni waxaa ugu baaqayaa midnimo waxaan ugu baaqayaa in shaqadooda ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed si kalsooni leh oo bilaa cabsi ah ay u qabsadaan iyagoo ilaalinaya nidaamka dalka aad iyo aad u mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إلهي القرآن كيسو حكير هداك حكم إيسان عدالتكم معمولة ما أنت عدالة يا شقيسي وحان مدد دير عن تاجنين ودوينك وعن تاجنين مال المناسب هين أنا جو هدي الجير شيء إن وريه أبوج وحريان سقلتن ضد بدن أيان الله يا بنا مالنتاس ضد بدن أيان ماركين علاديناي ضد بدن أيان برا برشة نقول ويراي مركا أنا أريد سك هذا لكن ما أنت عدالة أيا شقيسي وحان رجينا إن صحافة الصوماليين سيدا لو فهموا وحن أجين أبوج وحويهاي وحن أجين ماشي وكيمي وحكشقينا ما كان نقول علينا ضد بدن بالها شباب بعد كربسين إنسان شباب الليدي وروحنا إن كان دنتي سانقنا ما أنت وحن أقول صلي وحي محكمة أي قوان كذا يسوساتي إن أي لمدي وحي شلي أن كان ليني وحن رجينا يا إن عدالة وأشقين ضد محكمة ملترينا سجارة أمها علينا شو يتيم كيسة سيدا وناكسني عدالة أي مارتي أمرية وأمها علينا قرينا يعد كستو قيف قالتي أبوجة ورية وحوها صومالية waxaa qayb ka qaatay wariyaal badan oo Soomaaliyeed banaanka qoraxda u soo istaagay qof iyo koox iyo laba uma soo istaagin marka waxaan rajaynayaa qof kasta oo mahadcelinaya oo maalintaas ka qayb qaatay soo siideyntaasi cadaadisna u saaray sidii loo soo deyn lahaa cadaaladdu ha waarto waxaan rajaynayaa qof kasta inuu cadaalad helo cadaaladdu macnaheedu waxa waaye i'daa'in kulli dii haqqin haq qof kasta in xaqiisa la siiyo xaqiisii buu helay maanta waxaan leenahay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo wax yar ku daro cabdiwahaab abuuja waxaan soo daba taagnayn muddo ka badan 6 bil ku dhow intaas Soomaalida iyo adduunka oo dhan qaar kamid ah way nala yaabanaayeen maxaa yeelay dadka dhan waxay lahaayeen ninka doo socotiin maxaa waaye waxay ka cabsanayeen maxkamadda gobolka Banaadir maxkamadda ciidamada qalabka sida qof la keenay inuu san dib u soo laabanaynin sidaa daraadeed waxaan leenahay runtii waxay ahaaday muddo adag waxay ahayd muddo loo kala haray waxay ahayd muddo dadka intiisa badan ay cabsadeen oo ay nadahayeen see u doodaysay ninkaas waxaan leenahay marka ummadda Soomaaliyeed maanta cadaalad waa waartay gudoomiye shuuta iyo tiimkiisa way guuleysteen
guul oo cadaalad ay la gaareen waxaan leenahay saxaafadda Soomaaliyeed mar kasta qof kastoo wariyaa oo la soo eedeeyo wuxuu noqon karaa dambiile marka dambi lagu helo kadib waxaan idin leenahay marka inaad dhabar adeegtaan hanjabaadaha iyo waxyaalaha kalena aadan qaadana oo aad daba taagnaataan ilaa aad ka gaaraysaan qofkaas cadaaladiisa uu ku helayo marka waan ku faraxsanahay waxaana leenahay maxkamadaha kale ee gobolka Banaadir iyo maxkamadaha la midka ah ee dalka ka shaqeeya waa inay cadaaladda maanta gudoomiye shuute maxkamadda ciidamada qalabka sida ay sameeyeen oo kale ay sameeyaan runtii aan isniintii ka qayb galay dhageysigii wuxuu ahay go'aan wuxuu ahay dhageysi cajiib ah 4 saacadood ka badan socday cid kasta waxay rabtay sheegaysay gudoomiyuhu oo si wanaagsan u dhageysanayay waxaan leenahay marka dhammaan waxaan u mahadcelinaynaa inta ka qayb qaadatay gaar ahaan qareenadeena oo ana ko dadaal badan ku bixinay inay wariyahaas difaacaan oo Daahir Carab ugu horeeyo oo uu hogaaminayo waxaan leenahay boqolkiiba maasantiin saxaafadda inay daba taagnaataan rajaynayna ana kana markaas sida sheegi jirna sharciga inaan ku taagnaana rabnaa hadaan dimbi galnana ma sharciga in lagu qaadan rabnaa hadii laga galana sharciga in lagu qaadan rabnaa mar walba shacabkan sharciga ku taaganahay waa maasantiin guulaha dhigay هاي كيف دارو دارو اوكي مو قد سه مدح كبير دعلو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وريها كلام كي تاجن محمد عبد الوهاب وحال كل هذا العلص لكن قدام بيتي وحا محكمة دورتها كعدادي وحا محكمة دورتها كعدادي إن وحا الله يستعيين aragtidiisu cabiray oo si dastuurka iyo shuruucda dalka waafaqsan u cabiray inay ahaayeen cadaad maxkamadda ciidamada aad ugu mahadcelinaynaa waxaa la galay dacwad furan oo u furan dhageysiga dadweynaha kadib dhageysi dheer waxaa caddaaday in maxamed cabdiwahaab nuur abuuja uusan gelin هذه البلوساي اللي قصوا إني وحلا يستنيهاين أركتيسا أو عبري أو كوري فيسبوك أو كده إذا عدل وحرمنا صحافته وحيسلك كتهاي دولة وناكسن وحيسلك كتهاي ديمقراطية دولة وناكسن مجري كرتو هدي أنا جرين صحافة حرة oo sheegayso wixii ay aragto iyo wixii ay maqasho iyo xaqaa'iqa loo gudbiyo bulshada sidaas darteed waxaan u baaqaynaa cid kasta in saxaafadda xor laga dhigo oo aan la caburin aad aan soo dhaweynaa xukunka maxkamadda oo ay beri uga dhigtay wariye maxamed cabdiwahaab nuur abuuja aad aan u mahadsantihiin assalaamu calaykum waxaan salaamayaa marka hore dhammaan bahda saxaafadda guud ahaan ururadii kaalinta mudka lahayd ku ahayd ooleynta iyo in abuuja uu helo cadaalad horta waa u mahadnaqayaa waa looma kala harin dhammaan ururada saxaafadda wax u kala harin ma laha marka kow waa mahadcelin gaara oo iyaga ku salaysan la'aantoodana taasi inaan la gaari lahayn teeda kale waxaan ku mahadnaqaa maxkamadda ciidamada qalabka sida gudoomiyayaasheeda xeer ilaalinteeda garsoorayaasheeda guud ahaan waa u mahadnaqaa waayo waxaan ka aragnay oo isha aan saarnay ama goobjoog aan ka ahayn waxay ahayd in arrinta ay hoos u daadegaan si cadaalad ahna ay go'aan uga gaaraan kadib markii ay arkeen dulanka iyo xuqdiga
sharci daro ee lagu haystay maxamed cabdiwahaab nuur abuuja oo ah weriye ka tirsan weriyaasha Soomaaliyeed waa ayaan daro alxamdulillaah rabbil caalamiin dadaal badan kadib waxaan gaarnay cadaalad maxkamadda ciidamada qalabka sidana أد أنا قم هذا وأنا عدالة محكمة وأنا ما سنتين. ما سنتين. وعمر كده رغم هذا علينا محكمة عندما قام بكذا قدومي هذا جنرال حسن علي نور شوته سيدي قروح البدنات حكم كمان إنه هو أغني يدعي سيجي كوري ما عنده من الجوجو وهين كوساب سنة حكم كا هذه لو كمارته بين أبوركها لو هيستي وريها تفكرها إلى عدة هيكسي صاحب كان محمد عبد الوهاب أبوجا سيداد ما أنت مقشين إنه محكمة أي شيء أبوجا ما أنت وحر الله أكبر أيان لنا هاي أيان أقول أحسن هاي وأنك عدالة محكمة أو أنك فيني وعرفنا أنا كدروا محكمة ميليترية ضد بدن أو سومالية بحياني سيهين إن هاي محكمة عن عدالة هاي ضد بدن بحياني سيهين محكمة ميليترية إن قفك اللي جاي عن دب لو سو علم لكن وحان ما أنت عدينا إن أنت بينودي dhagaysigii سيجي محكمة أو مركي هو رئيس دت شعب الله أقلاده عنيقو أجوبجوج وهايسنينتي عنك قد قلي سيدي عنك أركي كمان في لينين إنس محكمة سياسة أو شقيسون وحي فعنا لتدي محكمة ده كلام عقاب كاسو كلا أو شقينا يعني أبو جمان توحر شن بلوت أيوه حرنا وحنكون فرح صنّا هاي إن ما أنت وبناك الجوج أو حر وياهاي شقدي سيستحد فيني ودب وضنا أيوه وحروا أنا هم هاد عليو قرينا ذي صاحب هذا النحاء مدة دير شنطة بلوضة هذين إيمان نلا شقينا إن الدبتاجنا سكر الدول نوت هاجري سيجارة وحنقوم هاد علنا يا قرين ظاهر محمد علي ظاهر عرب شقد بروح البنات ونراقب تيسق إياه كالياي شيسة إيه دمان قرينا ذي كلا هل كان كذب قلي يكمل ده هيا بروفيسور رضا إياه إسحاق وحروا أنا هم هاد عليو كالمتي أي نسيين إياه تاجر ذي أي نسيين دمان أورد إن قلب قيد قلي إن وريم عبد الوهاب قرينا وهلو لا شقي سيجار وحكومة علنا محمد عبد الوهاب عبد الله وقرب كي تاجن حويا جود السما أو أسرقنا هرنتان سجود إيه سيجار أهم عن وجود الشقيين إن عدالة وهلو وقدام بين وريم محمد عبد الوهاب أبوجا وعرفنا وجود بشارة بس الصحافة الصومالية وقت هي هذا صوم مرتين هو كلنا وإذا كسوف وليهن وإذا ما تحلي وريها اللي هنددي جري وإذا ما تحلي وريها اللي يدجر الشباب وإذا ما تحلي وريها ورك عذك كريتيكال كقرا لو هنددي جري لو هنددي جري محكمة إيه لقيناه حتى هذه محكمة لقيه سيدا سأقدم التجد دونا قرينان هاي سنة وحركة محكمة ده سيدا محكمة الميليتري أيضا عن أبنها وهبنا إن عدالة أي سمين دونتو صعبته وحاجو باقي يا اسكت دوبني وحاجو باقي يا مدنمو وحاجو باقي يا إن شقدوا ذا أيوه يعني شعب الصوماليين si kalsooni leh oo bila cabsi ah ay u qabsadaan iyagoo ilaalinaya nidaamka dalka aad iyo aad u mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إلهي القرآن كيسو حكير هداك حكم إنسان عدالة سكو مامورة ما أنت عدالة يا شقيسي waxaan muddo dheer aan taagnayn wadooyinka waxaan taagnayn meel aan munaasab ahayn annagoo had iyo jeer sheegaynay in wariye abuuja uu u xiryahay si qaldan dad badan ayaa nala yaabana maalintaas dad badan ayaa maaragtay nagu colaadinay dad badan ayaa baraha bulshada nagu weeraray marka aan arrintiisa ka hadalno laakiin maanta cadaaladii ayaa shaqaysay waxaan rajaynaynaa in saxaafadda Soomaaliyeed sida loo fahmo waxaan ogeyn abuuja wuxuu yahay waxaan ogeyn meesha uu ka yimid wuxuu ka shaqeynaa markaan ku celcelinayno dad badan baa lahaa shabaab baad garab siinaysan shabaab baad leedii ruuxana ninkan duntiisa naqana maanta waxaan aqoonsanay wixii maxkamadda ay go'aankeeda ay soo saartay in ay la mid yihiin wixii shalay aan ka hadlaynay waxaan rajaynayaa in cadaaladdu ay shaqeyn doonto maxkamadda militariga si gaar ah ugu mahad celinaynaa shuuta iyo tiimkiisa sida wanaagsan ee cadaaladda ay maartay u mariyeen waxaan u mahad celinaynaa qareenada iyo cid kastoo qayb ka qaadatay abuuja wariye wuxuu ahaa Soomaaliyeed waxaa qayb ka qaatay wariyaal badan oo Soomaaliyeed banaanka qoraxda u soo istaagay qof iyo koox iyo laba uma soo istaagin marka waxaan rajaynayaa qof kasta u mahad celinaya oo maalintaas ka qayb qaatay soo siideyntaasi cadaadisna u saaray sidii loo soo deyn lahaa cadaaladdu ha waarto waxaan rajaynaynaa qof kasta inuu cadaalad helo cadaaladdu macnaheedu waxa waaye i'daa'in kulli dii haqqin haq qof kasta in xaqiisa la siiyo xaqiisii buu helay maanta waxaan leenahay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo wax yar ku daro cabdiwahaab abuuja waxaan soo daba taagnayn muddo ka badan 6 bil ku dhow intaas Soomaalida iyo adduunka oo dhan qaar ka mid ah way nala yaabanaayeen maxaa yeelay dadka dhan waxay lahaayeen ninka daba socotiin maxaa waaye waxay ka cabsanayeen maxkamadda gobolka Banaadir maxkamadda ciidamada qalabka sida qof la keenay inuusan dib u soo laabanaynin sidaa daraadeed waxaan leenahay runtii waxay ahaaday muddo adag waxay ahayd muddo loo kala haray waxay ahayd muddo dadka intiisa badan ay cabsadeen oo ay nadahayeen see u doodaysiin ninkaas waxaan leenahay marka ummadda Soomaaliyeed maanta cadaalad waa waartay gudoomiye Shuute iyo tiimkiisa way guuleysteen guul oo cadaalad ay la gaareen waxaan leenahay saxaafadda Soomaaliyeed mar kasta qof kasta wariyaa oo la soo eedeeyo wuxuu noqon karaa dambiile marka dib lagu helo kadib waxaan idin leenahay marka inaad dhabar adeegtaan hanjabaadaha iyo waxyaalaha kalena aadan qaadana oo aad daba taagnaataan ilaa aad ka gaaraysaan qofkaas cadaaladiisa uu ku helayo marka waan ku faraxsanahay waxaana leenahay maxkamadaha kale ee gobolka Banaadir iyo maxkamadaha la midka ah ee dalka ka shaqeeya waa inay cadaaladda maanta gudoomiye Shuute maxkamadda ciidamada qalabka sida ay sameeyeen oo kale ay sameeyaan runtii aan isniintii ka qayb galay dhageysigii wuxuu ahay dhageysi cajiib ah 4 saacadood ka badan socday cid kasta waxay rabtay sheegaysay gudoomiyuhu oo si wanaagsan u dhageysanayay waxaan leenahay marka dhammaan waxaan u mahadcelinaynaa inta ka qayb qaadatay gaar ahaan qareenadeena oo ana ko dadaal badan ku bixinay inay wariyahaas difaacaan oo Dahar Carab ugu horeeyo oo uu hogaaminayo waxaan leenahay boqolkiiba maasantiin saxaafadda inay daba taagnaataan aan rajeynayna anakana markaas sida sheegi jirna sharciga inaan ku taagnaana rabnaa hadaan dimbi galnana ma sharciga in lagu qaadan rabnaa hadii laga galana sharciga in lagu qaadan rabnaa mar walba shacabkan sharciga ku taaganahay waa maasantiin guulaa jeedin Daro. Okay, no. مدح كبير دعوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وريها كلام كي تاجن محمد عبد الوهاب وعاد وشهيدي العلص لكن قدام بيتي وعا محكمة دورتها كعدادي وعا محكمة دورتها كعدادي إن واحد الله يستعين أركتدي سوء عبري أو 6 دستور كيشروع لدرك وعفصل وعبري إنه هاي عدات محمد إذا بدأ هذا ما دليلنا وحلق لي دعوة فرن أو فرن دقيسي الدنيا كذب دقيسي دار waxa cadaaday in Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja oo sangelin aadii xulxulusay ee lagu soo eedeeyay waxa loo haystay ayeen aragtidiisa oo cabiray oo ku qoray Facebook oo ka dhigay idaacadda waxaan rabnaa saxaafaddu waxay saldhig u tahay dawlad wanaagsan waxay saldhig u tahay dimuqraadiyadda دولة وناكسن مجري كرتو هدي أنا يجرين صحافة حرة أو شيء يسوي وحي أي أركتو يوحي أي مغشو هي حقائق لو قد بيو برشده سلاس دفتر وحان باقينا ادكستا إن صحافة حرة قدقو أو الله عبرين هذا وسود وهي ناحوك محكمتها أو أي بريو ودكتي وريه محمد عبد الوهاب نور أبوجة هذا وما 60 السلام عليكم waxaan salaamayaa marka hore dhammaan bahda saxaafadda guud ahaan ururadii kaalinta mudka lahayd ku ahayd ooleynta
iyo in guulja uu helo cadaalad horta waa u mahadnaqayaa waa looma kala harin dhammaan ururada saxaafadda wax u kala harin ma laha marka kow waa mahadcelin gaara oo iyaga ku salaysan la'aantoodana taasi inaan la gaari lahayn teeda kale waxaan ku mahadnaqaa maxkamadda ciidamada qalabka sida gudoomiyayaasheeda xeer ilaalinteeda garsoorayaasheeda guud ahaan waa u mahadnaqaa waayo waxaan ka aragnay oo isha aan saarnay ama goobjoogga aan ka ahayn waxay ahayd in arrinta ay hoos u daadegaan si cadaalad ahna ay go-aan uga gaaraan kadib markii ay arkeen dulanka iyo xuqdiga sharci daro ee lagu haystay maxamed cabdiwahaab nuur guulja oo ah weriye ka tirsan weriyayaasha Soomaaliyeed waa ayaan daro alxamdulillahi rabbil caalamiin dadaal badan kadib waxaan gaarnay cadaalad maxkamadda ciidamada qalabka sidana أد أنا أقول ما أملك وأنا عدالة محكمة وأنا ما سنتين.